dowladda Soomaaliya ayaa koodii bishan Janaayo dalka ka saartay Danjira Nicholas Haysom wakiilkii xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. warqadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay inuu farageliyo madax banaanida dalka sidaa darteedna aan halkan looga baahnayn. dad badan ayaa dowladda Soomaaliya ku taageeray arrintaas. Nicholas Haysom oo ah 66 jir Koonfur Afrika u dhashay qareen iyo diblomaasi wuxuu Soomaaliya ka shaqeynayay 3 bilood ee soo dhaafay. wuxuu ahaa go'aan culus oo wax walba sababi karay. diblomaasiyiin caalami ah ayaa isku dayay inay Soomaaliya ku qanciyaan inay ka laabato arrintan, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa difaacay mowqifka dowladdiisa. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu dambeyn aqbalay go'aanka dowladda Soomaaliya, waxaana la filayaa inuu wakiil cusub u soo magacaabo howlgalkiisa UNSOM. dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa 3 fursadood uga dhex jeeda tallaabada ay qaaday Soomaaliya. isbeddelka dhaqanka beesha lixaad. xubnaha beesha caalamka ee fadhiya xalane waxay dowladnimada Soomaaliya u arkaan wax basiida. mar walbana sida iyagu wax u rabaan ayaa kala weyn sida ay Soomaalida wax u rabto. ceyrinta Danjira Haysom waxay ku ridi doontaa foojignaan, waxayna bedeli doontaa dhaqankoodii meerinta. beesha lixaad waxay hadda kadib ku qasbanaan doontaa inay tallaabo walba kala tashato dowladda Soomaaliya. 2. codka Soomaaliya oo micno yeeshay. Soomaaliya waxay dunidu u arkaysaa ummad aan cod lahayn, wax diidi karin oo ay duruufuhu qasbayaan. laakiin go'aanka ay dowladdu ka qaadatay Nicholas Haysom wuxuu bidhaamiyey in Soomaaliya cod leedahay, wax diidi karto, waxna qaadan karto. inaad qaadi karto tallaabo noocan ah waa fasiraadda hanaan dhisan oo shaqeeya tii oo ay jirto in hadda kadib loo arki doono Soomaaliya qolo jawaabaysa oo ay tahay in laga dhigsugo falcelintooda. 3. dhabaha cusub ee Soomaaliya. go'aanka ay fila Soomaaliya ka qaadatay Danjira Haysom wuxuu dhabbe iska caabina u furi doonaa dowladaha soo socda ee Soomaaliya, kuwaas oo aan aqbali doonin faragelinta jiifweynta xalana degan iyo in wixii la doono loo meeriyo.